haddaba markii ciise halkii qaatay ayuu yidhi waa dhammaatay markaasuu madaxa foorarshay oo ruuxii bixiyey goortay casarkii ahayd waxaa yimid nin reer arimateya oo hodan ah oo yuusuf la odhan jiray oo isaguna ciise xertiisa ahaa kaasi wuxuu u tegey bilaatos oo ka baryey ciise meydkiisa markaasaa bilaatos amray in loo dhiibo yuusuf goortuu meydkii qaaday ayuu kafan nadiifa ku duuduubay oo wuxuu geliyey xabaashii cusbayd tan uu dhagax ka qoday oo xabaashii afkeeda wuxuu ku soo geringeriyey dhagax weyn wuuna ka tegey sabtidii dabadeed goortii waagii beriyey maalintii ugu horraysay ee toddobaadka maryantii reer magdala iyo maryantii kale waxay u yimaadeen inay xabaashii arkaan oo baleeg waxaa jiray dhulgariir weyn waayo malaa'igta rabbiga ayaa intay samada ka soo degtay timi oo dhagixii ka giraangirisay oo ku dul fadhiisatay midabkeedu wuxuu u ekaa hilaac dharkeeduna wuxuu u caddaa sida barafka cad oo cabsi aawadeed kuwii ilaalinayay waa gariireen oo waxay noqdeen sida maydad malaa'igtii ayaa u jawaabtay oo naagihii ku tidhi ha biqina waayo waxaan ogahay inaad doonaysaan ciise kan isku tallaabta lagu qodbay halkan ma joogo waayo wuu sara kacay siduu yidhi bal kaalaya oo arka meeshii rabbigu jiifay dhaqso u taga oo waxaad xertiisii ku tidhaahdaan kuwii dhintay ayuu ka sara kacay